kulan wacan wanaagsan daawadayaal meel walba joogtaan iyo si walba isarag maqalkeena idiin soo gaadhay kusoo dhawaada warkeena qodobada aad ku maqli doontaan waxaa ka mid a dagaalkii ka socday deegaanka yaasoomi oo xoogeystay iyo khasaarihii ugu xooganaa oo dhinacyada soo kala gaadhay iyo weliba dowladda federaalk soomaaliya oo war la yaab leh ka soo saartay dagaalka halkaasi ka socdo wafdigii ka socday dowladda federaalka ee ku sugnaa bulo berde oo ku godoonsan bulo berde iyo xaalad halisa oo halkaasi laga soo sheegayo cabdiraxmaan cabdishakuur oo si kulul u weeraray siyaasiyiin uu ku sheegay inay fashilinayaan howlgalka lagula jiro ururka argagixisada al-shabaab dhanka kalena wadanka ethoobiya oo si lama filaana u taageeray soomaaliya haddaba maxay tahay taageeradaasi la yaabka leh ee ethoobiya ay u fidisay dalka soomaaliya xilli weliba maalmihii ugu dambeysay dagaal xoogan ay ka taagnaayeen gudaha dalka soomaaliya dhanka kalena madaxweynaha dalka uganda yoweri museveni waxa uu ka warbixiyey socdaalkii dhowaan uu ku tegey madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya wadanka uganda iyo weliba waxyaabihii ay ka wada hadleen dhanka kalena maanta oo ah 12 oktoobar maalinta la yagleelay calanka soomaaliyeed ayaa xulka ciyaartoyda dalka soomaaliya waxa ay goolan lama filaan uga badiyeen dalka uganda waana markii ugu horeysay ee quarterfinalka ay u gudbayaan ciyaartoyda xulka soomaaliya iyadana warar faahfaahsan ayaan halkan idinku soo gudbin doonaa guud ahaan qodobadaasi iyo weliba kuwo kaloo faahfaahsan ayaad halkan warkeena aad ku maqli doontaan haddii ay tahay markaadii kugu horeysay barnaamijka sii sheergare oo gaarsii asxaabtaada kale haddii aynu ku bilowno dagaalkii ka socday deegaanka yaasoomi ayaa faahfaahin dheeraad ay ka soo baxaysa iyadoo weliba dagaalkani uu bilowday saaka subaxnimadii hore dagaalkan ayaa dowladdu siyaabo kala duwan ay oga hadashay iyadoo weliba dowladda ay sheegtay in dagaalkani uu ahaa mid gaadma ah islamarkaana ciidamada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya weliba kuwa macawisleyada fadhiisimo ay ku lahaayeen duleedka tuulada yaasoomi ay ku soo qaadeen urka argagixisada dadka deegaanka ayaana sheegaya in dagaalkani uu ku bilowday gawaari laga soo buuxiyo walixaha qarxa kuwaasi oo lagu weeraray afaafka hore ee xerada ciidanka ay ku lahaayeen si kastaba dagaalkan ilaa iyo haatan ma qaboobin walow dowladda federaalk soomaaliya ay horaan ay sheegtay ama subaxnimadii hore saaka ay sheegtay in dagaalkani ay ku dileen in ka badan 27 xubnood oo ka tirsan ururka argagixisada al-shabaab laakiin si kastaba war hadda soo dhacayna waxa uu sheegayaa in dowladdu hay haatan halkaasi kusii daabulaysa ciidamadii ugu badnaa waxaana ka socda dagaal xoogan oo ay dhinacyadu ay isku adeegsanayaan hubkii ugu dambeeyey ururka ayaa maalmihii ugu dambeysayba halkaasi waxay kaga jireen hub aruursi iyo weliba sidoo kaleto in ciidamo aad u tira badan ay ka keeneen gobolada dalka ay halkaasi kusoo daabulayeen kadib markii lagu jebiyey dagaalkii 3 maalin socday ee ka socday deegaanka jiicibow halkaasi oo gebi ahaanba lagu diray horjoogihii ugu sareeyey gobolka hiiraan ee ururkaasi si kastaba dowladda federaalk soomaaliya waxay sheegtay in ay guulo hordhaca halkaasi ka gaadheen laakiin dadka deegaanka waxay sheegayaan in dagaalkani uu yahay dagaal aad u xoogan islamarkaana ay adag tahay in labada dhinac ay kala sheegtaan guulo xilli dagaalku weli uu socdo ururka argagixisadan waxa iyagu ay sheegeen in gebi ahaanba dagaalku uu socdo islamarkaana ay dileen ciidamo aad u tira badan oo ka tirsan kuwa dowladda federaalk soomaaliya weliba macawisleyda weliba iyagu waxay si khaas u sheegeen in ciidamada ay halkaasi ku laayeen ay hayeen ciidamada loo yaqaano gorgor kuwaasi oo ay sheegeen inay ka dileen in ka badan 117 askari laakiin guud ahaanba warkaasi waxaa beeniyey dowladda federaalk soomaaliya iyo weliba shacbiga soomaaliyeed ee ku dhaqan aaga lagu dagaalamayo waxay dadka deegaanka sheegeen in dagaalku weli uu halkaasi ka socdo ayna adag tahay sida lagu ogaado xaqiiqada dhabta ee halkaasi ka socdo walow dadka deegaanku ay kasii qaxayaan intooda badan deegaanada haatan dirirtu ay sida tooska uga socdo gobolkan hiiraan ayaad moodaa in ururku ay ahmiyad gaara siinayaan maadaama gobolkan uu yahay gobol aad u khayraad badan islamarkaana ay tahay meelo ay ururkani ay ku dhuumaalaysan karaan ay leedahay sida webiga shabeelle iyo weliba dhulkan aadka u baaxada weyn in uu yahay dhul inta badan ay ku dhuumaalaysanayaan ururkan islamarkaana ay ku heli karaan gurmad oga imaada dhinaca galmudug iyo weliba sidoo kaleto gobolada dhexe ee dalka soomaaliya si kastaba ahmiyad gaara ayay u leedahay mid ka mid a saraakiisha dowladda federaalk soomaaliya kusan furmaha hore dagaalku hadlayna waxa uu sheegay in dagaalkani ay ku jebiyeen oo damicii ururkani ay lahayn gebi ahaanba ay soo afjareen balse waxaad moodaa in weli halkaasi uu dagaal ka socdo oo waxaa diyaaradaha dalka jabuuti ciidamada hiil walaal ayaana ka qayb
qaadanaya oo ka duqeyn cirka ku wada ururka halkaasi dagaalka kula jir walow duqeymihii shalayto isdaba jooggaha ee ka dhacay deegaanka jicibow ay waxyeelo kasoo gaadheen dadka rayidka laakiin diyaaraduhu waxay caawinayaan ciidamada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya dhanka kalena dowladda federaalka oo iyadu wado duulaan xoogan iyo weliba beecgeyn siyaasadeed oo ka dhana ururka argagixisada al-shabaab ayaa iyaduna waxay haatan helaysaa taageero ay ka helayso wadamada dariska iyo weliba sidoo kaleeto beesha caalamka oo iyagu dagaalka si toosa ugu soo biiraya dhanka kalena midooda afrika waxaa culays xoogan uu kusoo rogay ciidamadii ka joogay wadanka soomaaliya islamarkaana waxaa culays lagu saaray in ay ciidamadu ay haatan dhaqdhaqaaq ka bilaabaan gudaha dalka soomaaliya islamarkaana ay garab siiyaan ciidamada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo ayagu haatan looga hadhay howlgalada ka dhanka ururkaasi si kastaba dagaaladii ugu dambeeyey ee gobolka hiiraan ka dhacayay waxaad moodaa intooda badan in dowladdu ay aada ugu gacan saraysay walow dhanka kalena ururku weli ay wadaan duulaan iyo weliba sidoo kaleeto inay weeraro xoogan soo qaadayaan dowladda federaalk soomaaliya waxa ay ku sii daabulaysa halkaasi wafdiyo siyaabo kala duwan u tegayo deegaanka buulo berde iyo weliba sidoo kaleeto deegaanada ku xeeraysan iyo weliba magaalada baledweyne oo halkaasi aan ogeyn in isbuucii aynu soo dhaafnay ay ka dhaceen 3 qaraxoo aad u waaweyn si kastaba wafdigii tegay magaalada buulo berde ayaa iyaguna la sheegaya in ay ku godoonsan yihiin magaalada buulo berde oo ay adag tahay in xilligan oo dagaal xoogan uu ka socdo duleedka magaalada in ay diyaarad ay halkaasi ka degto waxaana halkaasi ku sugan qaar ka mid ah wasiirada xukuumadda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo weliba gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha shacabka iyo weliba wasiirada xuquuqul insaanka iyo weliba sidoo kaleeto arrimaha haweenka khadiijo maxamed diiri iyo weliba sidoo kaleeto xildhibaano laga soo doortay deegaanadaas walow inta badan xildhibaanadu ay tageen furimaha hore ee dagaalka haddana waxaa soo baxaysa in wafdigii halkaasi ku sugnaa ay adag tahay in ay halkaasi kasoo duulaan ayadana waxyaabaha kasoo kordho halkan ayaan idinku soo gudbin doonaa barnaamijkeena kan xiga hadduu eeba yiraahdo dhanka kalena cabdiraxmaan cabdishakuur oo ah xildhibaan ka tirsan golaha shacabka islamarkaana ah ergeyga gaarka ee abaaraha iyo weliba sidoo kaleeto musiibooyinka ee u qaabilsan madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa weerar culus ku qaaday qaar ka mid a siyaasiyiinta dowladdan haatan la shaqaysay weliba siyaasiyiin hore oo iyagu uu ku sheegay gebi ahaanba in ay xagaldaacina islamarkaana ay gebi ahaanba ay si weyn uga soo horjeedaan duulaankan ka dhanka la dagaalanka ururka al-shabaab waxa ayaan daraa in ay jiraan qaar inaga mid ah islamarkaana damacyo iyo dano siyaasadeed kale howlgalkan ka dhanka ururka al-shabaab islamarkaana doonaya in ay fashiliyaan horey waxaa u jirtay inay jiraan wadamo shisheeye kuwaasi oo ayagu doonaya in gebi ahaanba howlgalkani uu fashilmo sifo wadankeena oo nabada islamarkaana aanu la soo bixi karno macdanteena iyo weliba shidaalkeena in aysan ayagu rabin oo islamarkaana ay ka xun yihiin wadamadaasina waxaa ka mid a wadamada carabta oo inta badan gal siyaasadeed ku leh imaatinka dalkeena iyo weliba sidoo kaleeto siyaasadda dalkeena ka jirto oon ognahay in madaxweyneyaasha xataa la dooranayo inta badan ay ayagu yani codsigooda lagu soo doorto sidoo kalena ay ku bixiyaan dhaqaale aada u tiro badan dhanka kalena waxaa weerar uu ku qaaday inay jiraan qaar siyaasiyiinta haatan dowladda la shaqaysa laftirkooda ka mida islamarkaana awood xoogan ku leh ay ayagu doonayaan in gebi ahaanba howlgalkani uu fashilmo dhanka kaleeto ergeygan oo isagu ku eedaysnaa in uu gudaha dalka ka geysta musuq maasuq iyo weliba sidoo kaleeto inuu lunsaday lacagihii loogu talagalay abaaraha ayaa haatan waxa uu weerar ku qaadayaa siyaasiyiin uu ku sheegay inay yihiin calooshooda u shaqaystayaal islamarkaana uu adeegayo wadamo shisheeye dabcan arintaasi waa ay soo baxaysay oo horey waxaa loogu eedeeyey in ay yihiin wadamadaasi wadanka sacuudi carabiya iyo weliba imaaraadka oo ayagu ka xun in soomaaliya ay marnaba cagaheeda dib ugu istaagto dhanka kaleeto wadamo kaleeto ayagana afrikaan ay ka mid tahay wadanka wadamada deriska ayaa iyaguna ka xun howlgalkan ka dhanka ururka al-shabaab si kastaba maanta waxa ay soomaaliya helaysaa taageero dhinac kasta kuwaasi ay ka helayso wadamada deriska qaarkood waxa ay soo direen ciidamo ayagu naftood horayaala kuwaasi oon ka tirsanayn ciidamada nabad ilaalinta midooda afrika islamarkaana ka garab dagaalamaya shacbiga soomaaliyeed ciidamada wadamada soo dirayna waxaa ka mid a wadanka etoobiya oo ayagu ciidamo aada u tiro badan soo geliyey gudaha dalka soomaaliya sifo ay garab u siiyaan ciidamada macawisleyda kuwa dowlad goboleedyada iyo weliba ciidamada jamhuuriyadda federaalk soomaaliya
gaar ahaan dowladigaanka soomaalida ayaa ciidamadii ugu badnaa waxa uu shalay ilaa iyo isbuucii lasoo dhaafayba soo gelinaya gobolka hiiraan, galguduud, baay iyo bakool, waxaana jiro abaabul xoogan oo gudaha dalka ka socda sifo dadka loo caawiyo maadaama ay kaceen islamarkaana haatan ay u baahan yihiin hub iyo weliba sidoo kale tasaanad. madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya booqashadii uu ku bixiyey guud ahaan wadamada deriska ah ayayna ka dhalatay in uu taageero lixaad leh u helo la dagaalanka ururada ku dhumaalaysanaya gudaha dalka soomaaliya iyo weliba in madaxweynuhu beecegeyntiisii siyaasadeed ee ka dhankahayd ururka al-shabaab in uu haatan ay midho dhashay. dhanka kaleeto dowladda oo tan iyo intii la doortay madaxweyne xasan sheekh maxamuud geed gaaban iyo weliba mid dheer u fuushay sidii ay u qaadi lahayd cunaqabateynta hubka ka saaran dalka soomaaliya, ayaad moodaa in ay helayso taageero la yaab leh. dowladda ethoobiya ayaana maanta war lama filaan ah oo ay soo saartay waxa ay ku sheegtay in ay haatan garab taagan tahay dalka soomaaliya sidii gebi ahaanba cunaqabateynta hubka looga qaadi lahaa, waana arinta haatan inta badan ay u riyaaqeen ummadda soomaaliyeed. taageeradan iyo weliba ololahan haatan ethoobiya ay ku jirta ee soomaaliya ay ku garab taagantahay islamarkaana la rabo in hubka looga qaado cunaqabateynta soomaaliya ka saaran ayaa waxaa ayadna taageeray wadanka uganda oo dhowaanin u tegay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya, halkaasi oo kulamo ay ku qaateen dhigiisa Yoweri Museveni, waxaana maanta Yoweri Museveni uu soo saaray in soomaaliya ay helayso taageero dhinac kasta, hadday noqoto military iyo weliba haddii ay noqoto dhaqaale ee dhanka musharaadka ciidanka labaduba in ay ayagu wixii tabartooda ay bixinayaan. horey Yoweri Museveni waxa uu sheegay inaysan ayagu dhaqaale u awoodin laakiin ay ka garab istaagi doonaan wax kasta oo ku saabsan dhanka militariga, hadday noqoto uniformka iyo weliba haddii ay noqoto dhanka gawaarida dagaalka ee markaasi loo adeegsanayo dagaalada ka socdo gudaha dalka soomaaliya. si kastaba soomaaliya haddii ay marba heshay taageerada wadanka Jabuuti, sidoo kale Eritrea, dhammaanba wadamada geeska Afrika, waxa ay ku guuleysan kartaa in gebi ahaanba laga qaado cunaqabateyntii hubka ee saarayd muddada aadka u dheer. dhanka kaleeto waxaan ayadana socoto waan uu madaxweynuhu kula jiro wadanka Kenya oo ayagu siyaabo kala duwan uga xun ciidamada aadka u tirada badan ee Turkigu u tababara Soomaaliya iyo weliba hubka sharci darrada ay ku sheegeen lagu soo daabulay gudaha dalka Soomaaliya ayaa ayadana waxaad moodaa in madaxweynaha dalkani Kenya uu asagana kala hadlay dhigiisa dalka Soomaaliya sidii ay gebi ahaanba arrintaasi uga wada shaqayn lahaayeen. qaraarkan haatan uu qaramada midoobay ka fadhiisanaya in Soomaaliya hubka cunaqabateynta laga qaadi doono iyo weliba in loo fasixi doonana waxa uu dhacayaa bisha nagu soo aadan. si kastaba Soomaaliya ayaa ololihii ugu weynaa waxa ay ku bixinaysaa dhammaanba wadamada geeska Afrika. madaxweynuhu markii uu tegay wadanka Tanzania waxa ayadna halkaasi ay ka wada hadleen waxyaabo aad u tiro badan oo la xidhiidha sidii gebi ahaanba ay loo qaadi lahaa cunaqabateynta hubka. inta badanna madaxweynaha waxyaabaha uu u beectegaya wadamada deriska uu safarada ugu bixinayana waa arintaasi ayay la xidhiidha inta badan. walow madaxweynaha safarkiisu aad u tiro badnaa, haddana waxaa soo baxaysa in madaxweynaha safaradaasi tirada badan iyo weliba dhaqaalahaasi kasii baxaya dadka in aan haatan la fiirin doonin marba haddii hubka laga qaado in Soomaaliya ay helayso ciidamadeedii iyo weliba awoodeedii ay kula dagaalami lahayd cadow kasta oo soo daneeya gudaha dalka Soomaaliya. ugu dambeyntiina maanta oo ah 12 Oktoobar waa maalinta caalanka Soomaaliya la yagleelay, islamarkaana waa maalin aad ugu weyn dhammaanba bulshada Soomaaliyeed meel walba ay ku dhaqan tahay. isla maanta madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk Soomaaliya wuxuu ummadda Soomaaliyeed ugu hambeliyey munaasabadda 12 bishan Oktoobar oo ah maalintii caalanka la yagleelay. waxaa sidoo kaleeto ummadda Soomaaliyeed u rajeeyay guul iyo weliba gobonimo iyo weliba in laga qayb qaato dagaalkan haatan ka curtay gudaha dalka Soomaaliya. dhanka kaleeto isla maanta oo ah maalintaasi aadka u weyn xulka dalka Soomaaliya ee ciyaaraha waxa ay soo bandhigeen ciyaar aad ummadda Soomaaliyeed ay u daawanayso islamarkaana loola riyaaqay ciyaartani oo dhex martay xulka dalka Soomaaliya iyo weliba sidoo kaleeto xulka Uganda ayaa gebi ahaanba waxaa xulka dalka Soomaaliya ay ku reeyeen 8 gool iyo weliba 7 oo ay leeyihiin xulka dalka Uganda 7. si kastaba arintan ayaa ku soo aadaysa xilli dalkeena oo maanta xulkan dib loo yagleelay 17 sano uu jiro maanta in uu wadan ilaa iyo tan iyo intuu xornimada uu qaatay aan weligii dagaal ka dhicin islamarkaana
dhisnaa xulkiisu lacagan balaayiinana ku bixinayay in maanta ciyaartooydii Soomaaliyeed ay guusha intaa leeg ay soo hooyaan waa mid marnaba lama filaan hore waxaan ogeyn in ciyaartooyda dalka Soomaaliya ay guuldarro la soo laabanayeen meel kasta oo ciyaar ay la soo galaan ama waddan kasta oo la soo galaan si kastaba guushan maanta xulkeenu uu gaadhay waa mid ay ka soo shaqaysay dowladdii hore Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ognahay inay ku bixiyeen dhaqaale aad u tiro badan iyo weliba in ay tababaro dheeri ay u direen wadamada dibadda wadanka dibadiisa si kastaba guushani maanta ummadda Soomaaliyeed u soo hoyatay waa mid hordhac u ah guulo dambe oo ay gaari doonaan kooxda xulka dalka Soomaaliya waxyaabaha ka soo kordhana wararkeena dambe ayaan idinkula wadaagi doonaa hadduu eebbe yiraahdo guud ahaanna waxaanu ku howlanahay sidii aynu ku soo aruurin lahayn xogaha la xidhiidha dagaalka ka socda Yasoomi iyo sidoo kale guud ahaan kacdoonka ka cortay dalka iyo talaabo kasta oo dowladda federaalka ay qaado iyo weliba dhagarqabiyaashu meelaha ay laga qabsado ay ciidamada jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya ay qabsadaan guud ahaan intaasi ayuuna naga dhan yahay warkeenii galabnimo intaan kan xigay ku kulmi doonana waxay naga tahay sidaas amaana Allah